كو عبد الناصر قعن كديقلي سعيد عبد الناصر ديني دل توغشاء أو قصاصتي مرحوم ليبان حسين شيخو لبو عبد الفتاح عبد الرحمن محمد 15 سنة أو حبس عيدان عدي أنكو قناعسانين حكم كمحكمة وحاوفنا الرعفان وجد حكم محكمات maalintii ay taariikhdu ahayd 26 bishii 2015 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedeysane Cabduqaadir Dable Xooga Cabduqaadir Yaasiin Cabdisalaan 20 jir ah ina Faadumo Axmed ku dhashay degan xamar ka tirsan guutada saddexaad qaybta 12 Abriil xooga dalka Soomaaliyeed kaas oo xafiiska xeelanta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in asagoo magac been abuur ah uga tirsan ciidanka xooga dalka uu si bareer ah u dilay marxuum Faarax daahir cali taariikhdu markay ahayd 21 bishii 12 2014 dilkaas oo ka dhacay degmada Buulamareer gobolka Shabeellada Hoose dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeer ilaaliyaha oo ku xusnaa qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 19 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhageysatay qiraalka eedeysane Dable Xooga Cabduqaadir Yaasiin Cabdisalaan oo ka hor qirtay garsoorka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida hortiisa kana hor cadeeyay in uu qori ku soo taagay marxuumka asagana uu ku dhuftay xabad sidaasna uu ku dilay markay dhageysatay dawladda qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto maadaama uu islaha iska difaac sidaasna uu ku geeriyooday marxuum Faarax daahir cali sidaas darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in eedeysane Dable Xooga Cabduqaadir Yaasiin Cabdisalaan uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo qisaastii marxuum Faarax daahir cali ujeedada xukun maxkamadeed maalintii ay taariikhdu ahayd 26 bishii 2015 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedeysanayaasha kale ah kow Dable Jadiid Maxamed Cabdi Maalin 22 jir ah ina Shariifo Maxamed ku dhashay Shabeellada Dhexe degan wada jir ka tirsan dugsiga tababarka warshada nacnaca labo Dable Xooga Daahir Xasan Maxamuud 28 jir ah ina Maka Cali Xasan ku dhashay galgaduud degan wada jir kuwaas oo xafiiska xeelanta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inay dhac iyo falal amni darro ah ka wadaan degmada Dharkeenley dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeer ilaaliyaha oo ku xusneed 484 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markay ogaatay in maxkamadda aan la horkeenin wax cadeyn ah oo lid ku ah labada eedeysane markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanayaasha aysan jirin cid ku cadeysa heeda loo heesto isagoo ka codsaday maxkamadda in xorriyadooda dib loogu celiyo lagana sii daayo xabsiga sidaas darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in eedeysanayaasha kala ah Dable Jadiid Maxamed Cabdi Maalin labo Dable Xooga Daahir Xasan Maxamuud aysan ahayn dambiilayaal galay dambigii lagu soo oogay waxayna amraysaa in xabsiga si degdeg ah looga sii daayo hadii aan loo haysan dambi